maalin wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan kusoo dhawaada barnaamijkeena wargeysyada ugu caansan ciwaanada ay sameynayaan sidoo kale wararkii ugu dambeeyay sportska fadlan haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkayga subscribe saar like iyo share iyo comment kama marno daawadayaasha qiimaha badan marka koowaad waxaan ku bilaa legendiga kooxda Liverpool ninka lagu magacaabo Sir Kenny Dalglish ayaa dabcan shaaca laga qaaday 24 saac ka hor inuu ku dhacay coronavirus-ka ama caabuqa loo yaqaan COVID-19 inkastoo dabcan ninka lagu magacaabo Kenny Dalglish sheegay xaalad ahaan inuu aad iyo aad u wanaagsan yahay haddana waxaa la sheegay inuu dabcan tagay isbitaal oo rabay in infectionka laga baaro ama cirbado la duro xanuun hay awgeed balse waxaa lagu sameeyay checking ama baaritaan guud markii la mariyay kadib waxaa dhacday in laga helay dabcan COVID-19 ama coronavirus-ka laga helo positive uu noqday inkastoo dabcan uusan ximbaarsanin astaamaha qaar waana wax iska caadi ah cudurkan laba ayuu leeyahay qofka dabcan inay astaamaha ka muuqdaan ama mararka qaar inay u qarsan yihiin oo dabcan astaamaha aysan soo bixin sidaa darteed qoyskiisa waxay sheegeen kooxda Liverpool in Kenny Dalglish aad iyo aad u wanaagsan yahay haatanna uu soo kaban doono laakiin la geliyay xaalad karantiil ah waxaan lagu tilmaamay inuu yahay shakhsi nasiib badan maadaama astaamaha aysan ka muuqanin haddaba Kenny Dalglish maxaa lagu xasuustaa ama muxuu kooxda Liverpool u qabtay uu ku gaaray maqaamka ugu sarreeya inay ugu yeeraan Kinga Kenny ama boqorka Kenny ugu yeeraan waxyaabaha lagu xasuusan doono Scottishkan waxaa ka mid ah si gaar markaan filaysa 69 jirkan wuxuu kooxda Liverpool imaa sanadii 1977 asigoo kasoo tagay markaas kooxda Celtic oo la qaaday 4 jeer horyaalka Scotland 77 markuu imaado kooxda Liverpool wixii ka dambeeyay history weyn ayuu kooxdan la sameeyay markii laga eego macallinimadiisii iyo ciyaartoynimadiisii asigoo ciyaartoy wuxuu u qaaday 6 jeer horyaalka heerka koowaad Ingiriiska ah sidoo kale asigoo macalin 2 jeer ayuu u qaaday horyaalka heerka koowaad Ingiriiska waxay ka dhigan tahay marka magaca Kenny Dalglish Liverpool 8 horyaal ay ku heleen sidoo kale 3 jeerna wuxuu la qaaday tartanka European Cup oo haatan la yiraahdo ama loo bixiyay UEFA Champions League Kenny Dalglish sidoo kale waxyaabaha kooxda Liverpool la qabsaday asigoo ciyaartoy waxaa ka mid ah 4 jeerna u qaaday tartanka League Cup oo haatan loo yaqaan Carabao Cup FA Cup hal mar kula guuleystay sidoo kale wuxuu la qaaday European Super Cup marar kala duwan dabcan wuxuu noqday ciyaaryahanka ugu wanaagsan kooxda Liverpool dhawaana taariikh ahaan wuxuu noqday shakhsi ugu saameynta badan kooxda Liverpool markii laga eego guulihii uu la gaaray asigoo ciyaartoy iyo asigoo macalin ah sidoo kale Kenny Dalglish dabcan CV-giisa ciyaareed waxaa sii qurxiyay in 95 kooxda Blackburn Rovers si la yaab leh uu qaaday English Premier League dhawaana waxaa ka soo wareegatay ama dabcan loo dabaaldegay 25 sano ka hor markii kooxda Blackburn Rovers si la yaab leh ama wali ku qaaday xil ciyaareedka 94 English Premier League asigoo ka faa'iideystay dhalinyaradii markaas soo hana kaceen sida dabcan Chris Sutton iyo Alan Shearer labadii weerarka ee mucjisada Premier League xil ciyaareedkaas ka dhigeen oo kooxda Blackburn Rovers Kenny Dalglish ka caawiyeen si la yaab leh inay u qaadaan English Premier League Kenny Dalglish waxaan u rajaynaynaa soo kabasho degdeg wuxuu ka mid yahay shakhsiyaadka astaanta ah guud ahaan kubadda cagta UK gaar ahaan kooxda Liverpool intaasaan kaga gudbeynaa bal markaana sii fiirino sheekooyin kale ta BBC oo daabacaysa beeshkeeda gaarka ciwaanada dabcan sida gaarka looga hadlay waxaa ka mid ah kooxda Spurs waxay doonaysaa gacanta inay ku soo dhigto ciyaaryahanka lagu magacaabo Geoffrey Kondogbia kani waa Faransiis oo ciyaara kooxda kubadda cagta Valencia 27 jir oo qadka dhexe ka ciyaaro qandaraaskiisa waxaa lagu jibin karaa 80 milyan oo euro laakiin haddii kooxda Valencia markuu xil ciyaareedkan Spain soo ilaaday ay ka mid noqon waas afarta kooxood ugu sareeyo oo Champions League seasonka dambe ciyaaray lacagta haatan lagu rabo kala bar ayaa lagu heli karaa ama 40 milyan oo euro ayaa lagu iibsan karaa Geoffrey Kondogbia sida Evening Standard ay soo daawacday sidoo kale ciyaaryahankan Faransiiskan waxaa doonaysa kooxda Everton Kondogbia hore wuxuu ugu soo ciyaaray kooxaha Lens Sevilla AS Monaco Inter Milan sidoo kale sheekooyinka jira waxaa ka mid ciyaaryahan Philip Coutinho waxaa la sheegay dalab kale inuu ka soo gaaray koox London ka dhisan kooxdaasna waa Tottenham Hotspur ayadoo maalmihii ugu dambeysay la hadalhay Chelsea inay doonayso ciyaaryahankan markan waxaa la sheegay 27 jirkan kooxdiisa Barcelona in dabcan dalab rasmi ka soo gaaray Spurs Coutinho haatan ama wuxuu kula joogaa kooxda FC Bayern Munchen Spurs waxay rabaan inay bixiyaan 80 milyan oo euro oo ay kooxda Barcelona ku doonayso halka Chelsea ama ay ku rabto marka Mirror waxay leedahay waxaa macquul Chelsea in lagu garaaco loolanka dabcan Coutinho oo ay kooxda Spurs ka dulqaado dhinaca kale sheekooyinka jira waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta Manchester United waxay qiimeyn doontaa sidii dabcan contract dalka ka saxiixi lahayd Odion Igalo 30 jir ah macna Ole Gunnar Solskjaer ayaa dabcan go'aankaas qaadan doono laakiin waxay u badan tahay ciyaaryahankan dabcan Nigerianka kooxda inuu sii joogi doono sidoo kale kooxda Shanghai Shenhua sharwado badan lama imaan doonto sidii Odion Igalo oo Premier League u sii joogi lahaa sidii Evening Standard ay soo daawacday walow waxaa leeyahay dabcan Ole uu ku fikirayo inuu weeraryahan dhalinyar keensado oo macalinkan wuxuu ka fikiraa mar walba mustaqbalka fog maxaa United u qaban kartaa taasi hadduu go'aankaas qaato waxaa macquul la sheegay in Igalo kooxda laga diro dhinaca kale Chris Smalling Manchester United ama kaga maqan wuxuu kalsooni fiican ku qabaa kooxdiisa Roma contractiga amaado kula joogto in laga dhigi doono 30 jirkan Ingiriiskan wuxuu leeyahay Manchester United inay ku soo laabto maradii sababta wuxuu ogyahay waqtiga fiican ku qaadanay kooxda Roma iyo booska joogtada oo hase dasan ay soo daabacayso dhinaca kale waxaa la sheegay dabcan haddii aan sii fiirino sheekooyin kala jira waxaa ka mid ah kooxda FC Bayern Munchen ciyaaraankeeda garabka dul lagu magacaabo Kingsley Coman 23 jirkan wuxuu sheegay inuusan meesha ka saari karin isaga tagay kooxda FC Bayern Munchen xilli Daily Mail ee qorayso waxaa macquul Kingsley Coman Premier League inuu imaado ayadoo Arsenal Spurs Liverpool iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta Chelsea dhamaantood ay doonayaan ciyaaryahankan garbaha ka duulo balse cilada ugu weyn ee koox walba shaqo qabto xitaa dhaawaciisa badan awgeed dhinaca kale waxaa la sheegay kooxda Chelsea waxay ku soo birtay loolanka lagu jiro ciyaaryahanka lagu magacaabo Gabriel Magalhaes
waa 22 jir daafaca dhex kaga dhela kooxda Lille. Chelsea waxay diyaar u tahay 30 milyan oo bond ku qaadata Braziliankan waxayna ka dulqaadi doontaa kooxaha Arsenal iyo Everton sida Express ee soo daabacday. dhinaca kale sheekooyinka jira waxaa kamid ah Diet Upamecano 22 jirka Faransiiska daafaca kaga dhelo ama uga ciyaara kooxda RB Leipzig waxaa la sheegay xidigan inuu si gaar u doorbidayo ka ciyaarista English Premier League xilli Arsenal, Spurs, Man City ay doonayaan. Tani waxay ku noqotay wajigabax kooxda Real Madrid oo rabta ciyaaraanka inay qaadato sida The Mirror ee soo daabacday. dhinaca kale sheekooyinka jira waxaa kamid ah haddii aan sii fiirino gudaha Ingiriiska jiro ninka lagu magacaabo Hernan Crespo weeraryahankii hore ee kooxda Chelsea wuxuu dabcan u tilmaamay ciyaaryahankan inuu ku biiro ama uu ka faa'iido dalabka u soo bandhigayaan Chelsea iyo Barcelona. Crespo wuxuu leeyahay dabcan Lautaro Martinez waa 22 jir wax weyn qaban karo sidoo kale tan Crespo wuxuu aaminsan yahay xitaa inuu gali karo booska Sergio Kun Aguero oo kooxda Man City u caawin kara sida Metro ay soo daabacday. si kooban waxay ka dhigantay marka Crespo wuxuu ku boorinaa Lautaro Martinez inuu Inter Milan isaga soo tago. daawadayaasha qiimaha badan sheekooyin kale gudaha Ingiriiska jira waxaa kamid ah legendiga weyn laga dambeeyay Paul Scholes oo Manchester United waqti dahabi ku qaatay wuxuu ka dhawaajiyay inuu ka shaleynayo go'aankii sanadii 2004 koobkii Euro markuu xulka Ingiriiska ugu ciyaaray oo qaran kaga fariistay wuxuu yiraahday markaas 29 jir ahay waana ku qaldan ayuu ka dhawaajinay xulka Ingiriiska kaga fariisto sababtii ugu weyn xagaagii 2004 nabcan Paul Scholes kaga fariistay waxay ahayd inuu dhibsaday tababariyo xulka Ingiriiska hogaaminaya xilligaas Steven Goran Eriksson oo Paul Scholes garabka midig ka ciyaarsinaya halka qadka dhexe u galiyay Frank Lampard iyo ninka lagu magacaabo Steven Gerrard marka wuxuu leeyahay Scholes waxay dulqaad inaan muujiyo aan xulka u sii ciyaaro ee qalad ay ahayd dabcan anigoo 29 jir xulka Ingiriiska kaga fariistay sanadii 2004 sidoo kale Scholes wuxuu sheegay sanadii 2010 xagaagii ah koobka adduunka intaan la aadin in tababar Fabio Capello u soo bandhigay fursad kale oo xulka Ingiriiska ka qayb qaadan kara koobkii adduunka ee Koonfur Afrika martigeliyeen ciyaaryahankan uu iska diiday wuxuuna ka doorbiday qoyskiisa inuu la aado dabcan xilliga samarka ama dabcan xagaaga uu la qaato wuxuu leeyahay go'aankaasna ku qaldanay waxay aad fursadaas inaan ka faa'iideysto maadaama gabalkayga ciyaaradu sii dhacay waxaa fiicnaan doona xulka Ingiriiska inaan ku soo gootiyo tartankaas koobka adduunka aan kala qayb qaata markii Scholes wuxuu haatan dib u milicsaday ama uu dib kaga sheekeeyay waxyaabihii soo mar waayay ciyaar gaar ahaan go'aanadii qaldana xulka Ingiriiska uu qaatay markuu iska diiday markuu iska diiday dabcan tartankii koobka adduunka 2010 uu ciyaaro iyo asagoo 29 jir xulka inuu isaga fariistay. dhinaca kale sheekooyinka jira gudaha Ingiriiska waxaa kamid ah kooxda Chelsea ugu dambeyntii waxaa la sheegay inay iska iibin doonto ciyaaraankeeda lagu magacaabo N'Golo Kante ciyaaryahankan Faransiiska 29 jirka Chelsea contract-uu kula jiro wuxuu ku egyahay June 2023 laakiin macna Frank Lampard wuxuu dhibsaday in xilli ciyaareedkan kaliya 3 jeer oo kala duwan N'Golo Kante dhaawacyo soo gaareen wuxuuna u arkaa Lampard inuu ka maarmi karo Kante darteed ciyaaryahankii hore ee kooxda Leicester City waxaa la sheegay inuu ku biiri doono Real Madrid iyo Paris Saint-Germain midkood kooxda Chelsea waxay ku doonaysaa ciyaaryahankan tayada wanaagsan ku dhawaad 100 milyan oo pound ayay ku doonaysaa marka waxay u egtahay ugu dambeyntii ninka lagu magacaabo N'Golo Kante iyo kooxda Chelsea inay kala tagi doonaan. daawadayaasha qiimaha badan bal markaan tagno gudaha Talyaaniga waxaan fiirin doonaa sheekooyinka maanta jiro ciwaanaha Talyaaniga waxaa qaatay ra'iisul wasaaraha Talyaaniga Giuseppe Conte oo ku dhawaaqay dalka Talyaaniga guud ahaan ku sii jiri doon lockdown-ka ama dabcan bandowga ilaa laga gaaray dabcan 3 bisha May mas'uulka ugu sareeya dowladda Talyaaniga wuxuu leeyahay xaaladda way soo wanaagsananaysaa dhawaanahan kiisaskana way yaraan drop out dhacay kiiska uu yaranay laakiin wuxuu leeyahay isdhigana ma ahan waa inaan feejignaan adag sameynaa bandowgan wuxuu leeyahay ilaa 3 May ayuu jiri doonaa sidaan wada ognahay daawadayaasha qiimaha badan 9kii bisha Maars ayay soo bilaawday Talyaaniga markii la geliyay xaalad degdeg ama dabcan karantiin la geliyay wadanka oo idil oo qof walba gurigiisa kama soo bixi karo markaasna Talyaaniga waxay galeen dhibaatadii ugu darneed ayadoo dabcan dhimashadii ugu darneed ka dhacday laakiin dhawaanahan way soo kabteen balse ra'iisul wasaare Conte wuxuu leeyahay isma dhigan doono oo xaalad sidan ay sii ahaan doontaa aan sii fiirina marka qodobada ka sii dhasheen go'aanka ay qaateen dowladda Talyaaniga waxaa ka dhasheen daawadayaasha qiimaha badan in tababarka Talyaaniga kooxaha ay bilaabi doonaan 4 bisha May haddii 3 bisha May uu soo ilaa dabcan lockdown-ka 4 bisha May waxaa bilaaban doona tababarka kooxaha sidoo kale wargeyska caanka Tutto Sportivo wuxuu qoray in Juventus dhammaan ciyaartooyda banaanka ka maqan haddii jiraan Koonfur America Europe inteeda kaleba loogu wacay gudaha Talyaaniga inay soo galaan si baaritaan loogu sameeyo 14 cishana karantiin loo geliyo oo dabcan 4 bisha May markuu tababarka bilaabanayo ciyaartooydaas ay la bilowdeen sidoo kale talaga kaalsha gudoonkooda waxay isku raaceen koox walba in la siiyo qalab dhameystiran oo lagu baari karo coronavirus-ka iyo sidoo kale meelo gaar in la siiyo karantiin lagu gelin karo ciyaartooyda waxaa la sheegay qarashaadka ku bixi doona dowladda Talyaaniga garab inay ka geysan doonto si horyaalku u soo laabtay kaalin adaga laga qaadan doona laakiin marka koowaad Talyaaniga waxay leeyihiin xaaladan aan ka gudubno dhinaca kale sheekooyinka jira waxaa kamid ah gaar ahaan la Gazzetta dello Sportivo ay soo daabaceen mustaqbalka Milan ayay ka hadleen laba ciyaartooy kooxda Milan muhiim u ah ayaa dabcan laga arinsan doona waliba waxaa loogu magac daray R Factor ama ciyaartooyda xarafka wataan waxay kala yihiin Romagnoli iyo Rebic
ninka lagu magacaabo ninka lagu magacaabo Alessio Romagnoli waa kabtanka Milan waxaa laga codsanaya ama waajibku ee contract cusub inuu saxiixo laakiin daafacan wuxuu ka fikiraa mustaqbalkiisa xigo iyo kooxda maxaa dhici doona sababtoo Romagnoli wuxuu walaac ka muujinayaa Maldini iyo Babban kooxda in laga diray mustaqbalka Milan sidoo noqon doona insan ogeyn Donnarumma kooxda ka tagay sidaa darteed Romagnoli maamulka culays ku saaran contract cusub saxiixa lagu haya asna wuxuu leeyahay xaaladda kooxdan eegi doona dhinaca kale Milan Ante Rebic kooxda Frankfurt waxay u soo direen fariin waxay dhaheen waajib ay idinku tahay 30 June hadii la gaaro ciyaaryahankan waa naga iibsanaysiin 40 milyan oo euro ayaan ka rabnaa sababta heshiiska wuxuu ahay hadii seasonka ciyaaryahankan Milan oo la dhameystiro Croatianka inay iibsadaan Milan waxaa la sheegay markaan budget ay raadin doonaan sidii dabcan ciyaaryahankan Ante Rebic u soo heli lahayn sidoo kale Milan waxaa la sheegay araf factorka ama xarafka raac waxaa qayb ka ah inay rabaan agaasimaha lagu magacaabo Rolf Rangnick oo dabcan kooxda RB Leipzig hogaamiyo mas'uulkaana wuxuu sheegay kooxda Leipzig la xiriir u dhahay waxaan diyaar u inay imaado garoonka San Siro waliba Rolf Rangnick Milan laba siyaabada kaga faa'iideysan karaan inay macallin ka dhigtaan iyo in agaasimo ka dhigaan hawsha uu kala wada marka wuxuu leeyahay Rolf Rangnick la xiriira kooxda RB Leipzig ee kala hadla dabcan qaabkii aan ku imaan lahaa San Siro dhinaca kale sheekooyinka jira waxaa kamid ah Paulo Dybala wuxuu haatan helay kalsoonida ugu dambeysay kooxda Juventus Alessandro Del Piero legendiga Juventus wuxuu leeyahay ninkan number 10 uu qalmaa hogaamiyaha kooxda uu qalmaa contract dheer laga saxiixo oo qandaraaskiisa la gaarsiiyo June 2025 sidoo kale tan loo ogolaado inuu hogaaminta kooxda qaato warka Del Piero waxa laga fahmi karaa marba haduu leeyahay loo ogolaado hogaaminta kooxda ha qaato in dabcan la micno yahay Cristiano Ronaldo hal iska diro Juventusna qorshahaas way wadaan in CR7 iska diraan dhinaca kale sheekooyin kale gudaha Talyaaniga ka jira waxaa kamid gaar ahaan Tutto Sportivo soo daabaceyso Cristiano Ronaldo dhaliil xooggan la kulmay kadib markii dhawaan uu soo bandhigay jasiiradiisa isagoo tababar ku qaadanay waxaa la sheegay xilli dabcan lagu jiro lockdown in CR7 sidaas inuu sameeyo qalad ku ahay sidoo kale waxaa la sheegay Ronaldo walaashiis waxay ka tagtay jasiiradda caanka Madeira waxay tagtay dhankaasi gudaha Brazil waxaa la sheegay dabcan safarkaasna qalad inuu ahay si kastaba ahaato Ronaldo maalmihii ugu dambeysay baraha bulshada wanaag ku haystay laakiin haatan waxyaabo negative laga soo dhigaya ciyaaryahankan ma uusan ka soo jawaab celin bal markaan sii fiirino sheekooyin kale gudaha Talyaaniga ka jira waxaa kamid ah ciyaaryahan Edin Dzeko wuxuu aaminsan yahay kooxdiisa Roma in seasonkan ay kamid noqon karto afarta kooxood ugu sarreeya Italian Serie A hadii xaaladda caadi ku soo laabato sidoo kale hadii aan sii fiirino sheekooyin kale jira waxaa kamid gudaha Talyaaniga in ka badan 200,000 oo qofood ayaa dabcan waxay u mahadceliyeen qolyaha caafimaadka howlaha ay hayaan ayagoo dabcan baraha bulshada qabseen shakhsiyaadkaasna waxa ugu horeeyay ciyaartooyda macallimiinta maamulka kooxaha waxay u mahadceliyeen qolyaha caafimaadka xaaladda adkaa Talyaaniga ka soo saareen sadarteed waxaa leeyahay marka Talyaaniga way garab taagan yihiin sheekooyinkaas ugu xiisaha badan gudaha Talyaaniga ka jiro bal markaan tagna daawadayaasha qiimaha badan gudaha Spain waxaan fiirin doonaa Spain ciwaanada wali waxa qaadanaysa kooxda Barcelona doodii iyo murankiisa taagan kadib markii madaxweyne Jose Maria Bartomeu lix agaasimayaal asaga la shaqeynaa kamid ahayeen dabcan dadka gudiga dabcan board of directors ama talada ka go'do kooxda isaga tageen maamulka sare kooxda Barcelona arrinkan ka hadleen milkiilayaasha badankood waxay garab istaageen madaxweynaha dabcan kooxda Bartomeu waxay leeyihiin milkiilayaasha kooxda waa qalad ayadoo aan la gaarin xilli doorasho iyo waqti adag ayadoo lagu jiro in kooxda muran laga dhaxdhaliyo oo sidoo kale dabcan agaasimayaasha kooxda isaga tagaan sidaa darteed waxaa la sheegay madaxweyne ku-xigeenka kooxda Barcelona ninka lagu magacaabo Rosenda in culays xooggan uu saaran yahay oo dabcan mas'uuliyiinta ugu sasareeya Barcelona waxay leeyihiin mas'uulkaas dacwadan ku soo eegi doona maadaama agaasimayaal badan asiga dartiis ku casileen halka Rosenda asigana uu leeyahay aniga go'aan aan leeyahay qofkii aragtiyada qaatana dabcan waa soo dhawanaya si kastaba ahaato waxaa la sheegay dabcan dadka talada Barcelona ka go'do isku dhinac ma ahan qaar badan diidan Bartomeu arimahaas si fiirin doona marka majalada Mundo Deportivo waxay leeyihiin waxaa la tirin karaa maalmaha dabcan waxay leeyihiin Bartomeu oo kalsooni ma haysto sidoo kale waxay leeyihiin kooxda culays xooggan saaran culayskan laguma sii fiirsan karo sidoo kale waxay leeyihiin Rosenda wuxuu garab ka helay dabcan taageerayaasha iyo qaar kamid agaasimayaasha xitaa ciyaartooyda qaarkood asiga taageersan si kastaba ahaato Mundo Deportivo waxay leeyihiin inta aan la gaarin doorashada guud ee Barcelona June 2021 waaba la kala bixi doonaa waxaa macquul ah Bartomeu shaqadan isaga taga culayska saaran awgeed hadii aan fiirino majalada caanka ee Marca waxay leeyihiin ama qodobku waad ku bilaabeen Lionel Messi ay soo qaateen oo wuxuu leeyahay Messi dabcan waxaan diyaar u ahay kooxda Barcelona caawiyo hadii xaaladda caadi ku soo laabatan wuxuu diyaar u yahay Messi inuu dabcan kooxdiisa caawiyo oo wax weyn u qabto laakiin markaan waxaa leeyahay Messi shakhsiyadiisa wuxuu lumin doonaa Golden Boot ama kabaha dahabka oo waa markii ugu horeysay muddo kadib laga qaadi doono markaana waxay u ogtahay Thierry Immobile inuu qaadan doono sababtoo Messi 8 gool waxa ka sareeya Thierry Immobile marka Marca wuxuu leeyahay hadii horyaalada lagu soo laabto Messi Golden Boot inuu lumin doono u badan tahay dhinaca kale waxay soo qaateen wiilka lagu magacaabo Martin Odegaard Marco wiilkan wuxuu leeyahay waxaan diyaar u ahay kooxda Madrid inaan ku soo laabto oo heshiiska amaahda kooxda Sociedad soo gabagabeeyo waa hadii boos joogta la ii balan qaaday dhinaca kale majalada ay waxay qodob ka soo qaateen dhibaatada Barcelona ka jirta waxay leeyihiin dab xooggan ayaa kooxdan ka dhex jiro arrinkaas awgeed waxay leeyihiin kooxda Barcelona maamulkooda isku dhaceen ciyaartooyda qaarkoodna dan ay u arkaan oo waxay noqon doontaa qaar kamid ciyaartooyda kooxdan isaga tagi doonaan
dhinaca kale tababaraha kooxda Real Madrid Zinedine Zidane waxaa la sheegay in saxiixa kooxda sameyn doon uu noqon doono wiilka lagu magacaabo Eduardo Camavinga sidoo kale Zidane wuxuu doonayaa ninka lagu magacaabo Haaland oo Borussia Dortmund u ciyaaro iyo Paul Pogba saddexdaas saxiix oo kaliya Zidane raba xilli ciyaareedkan ugu soo foole halka dabcan James Rodriguez Gareth Bale ciyaartoy kalena kooxda laga diri doono aan sii wadna sheekooyin kale gudaha Spain ka jira si gaar haddii aan fiirino waxaa kamid ah in kooxda kubadda cagta Real Madrid ciyaaraankeeda Ashraf Hakimi ay ka fikirayso Janis inay siiso kooxda lagu soo celiyo sidoo kalena uu la tartamay ciyaaraanka lagu magacaabo Dani Carvajal laakiin ciyaaraankan wuxuu wataa shuruud adag oo ku aadan asig in laga dhigo dooqa koowaad sidaa darteed waxaa la leeyahay way adkaan doontaa Ashraf Hakimi inuu soo laabto haddii uu soo laabana waa in Carvajal la iibiyaa Carvajalna Madrid way ku adagtay in dabcan iibiyaan ciyaaraankan tayada wanaagsan sidoo kale haddii aan sii fiirino sheekooyin kale gudaha Spain ka jira waxaa kamid ah kooxda Real Madrid waxay lumin doontaa ama khasaari doontaa 18 milyan oo euro oo ay ka heleen tartanka loo yaqaan International Championship Cup ama ICC oo la ciyaar leh xagaaga nagu soo folle horyaalada Euro waxay u baahan in la dhameystiro arrinkaas awgeed marka waxaa la sheegay Madrid iyo kooxo badan oo Euro tartankan weligood ciyaar jireen xilliga xagaaga oo Mareykanka ama Australia ama China ama Singapore ama bariga fog ku ciyaar jireen waxaa la sheegay tartankaas in gabi ahaanba la kansalay marka Madrid lacagaha ugu badan ka heli jirtay 18 milyan oo euro ay khasaari doonaan salamada Barcelona iyo kooxo kale Manchester United kamid yihiin Man City iyo kale Liverpool sidoo kale Juventus FC Bayern Munchen dhammaan kooxaha tartankan ciyaar jireen Inter Milan xitaa kamid tahay khasaare xooggan la kulmi doonaan laakiin Madrid ayaa la sheegay in lacagaha ugu badan ay khasaari doonto sidoo kale haddii aan sii fiirino daawadayaasha qiimaha badan sheekooyin kale gudaha Spain ka jira waxaa kamid ah kooxda Barcelona ciyaartoyda muhiimka ah Arturo Vidal iyo Evan Rakitic waxaa la sheegay in isaga tagi doonaan kooxda markuu dabcan xilli ciyaareedkan soo idlaado Rakitic waxaa la hadlaa inuu ku biirayo kooxda Atletico Madrid Vidalna waxaa la sheegay Inter Milan ayuu ku biiri doonaa marka waxay ka dhigan tahay laba ciyaartoy waa arag inay kooxda kubadda cagta Barcelona ka tagi doonaan daawadayaasha qiimaha badan guud ahaan barnaamijkeena wargeysyada ugu caansan ciwaanada ay sameynayaan iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyay sports intaas aan ku soo idlinana waa ku mahadsantiin daawashadiina assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu